16 bishii Maarso 2025 Illinois dalka Mareykanka ayaa waxaa dhacday macluumaad tababar kubadda cagta ah oo haweeney dhawaan aqal gashay ayaa lagu bilaabay baaritaan gaari oo caadi ah laakiin midaasi ma aysan ahayn arrin iska caadi ah sababtoo ah haweeneyda gaariga waday kaliya ma aysan ahayn qof la tuhunsan yahay waxay ahayd qof maalin kasta lagu aamini jiray caruur isla markaana waxay baariyaasha daha ka rogeen wax gilgilay qarankoodii oo dhan. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, kusoo dhawaada channelkeena Khafiifo. Maanta waxaan idin wadaagi doonaa faahfaahin kasta oo ku saabsan kiiskani iyo fariimaha xasuus qorka beenta iyo eedeymaha ila joog muuqaalka ilaa iyo dhamaadka. Downers Grove, Illinois oo ah xaafad degan oo dabaqada dhexe ah kana baxsan magaalada Chicago, Christina Formella waxay u muuqatay macluumaadii ugu qiimaha badneed ee joogta aagaas. Ayadu waxay ahayd 30 jir soo jiidasho leh, dadkuna aad bay u jeclaayeen. Ayadu waxay ka shaqeynaysay Downers Grove South High School tan iyo 2020 ayadoo ahayd macluumaad waxbarashada gaarka ah waaxda adeegyada gaarka ah. Waxay sidoo kale tababaro u ahayd kooxaha kubadda cagta ee wiilasha iyo gabdhaha. Sidoo kale ayadu waxay ahayd nooca macallimiinta ay carruurta ku kalsoonaadaan oo ay waalidiinta ku qanacsan yihiin. Intaas ka sokow waxay guursatay dhawaan ayadoona guursatay xagaagii 2024 waxay la aqal gashay Michael Formella oo ah jaceylkeedii jaamacadda Concordia University Chicago. sawirada arooskoodan waxay muujinayaan ayaga qoobka ciyaar sameynaya sidoo kalena qoslaya kuna hareereysan music. qoyskani marka laga eego dibadda waxay ahaayeen qoys aad u wanaagsan, laakiin albaabka fasalka gadaashiisa waxaa ku jireen fariimahaasi oo ku keedsana taleefankeeda ayagoona halkaas ka socotay sheeko aad ugu duwan kuwa caadiga ah. tanina waxay bilaabatay waqti dheer ka hor intaan cidna ogaan inay eegto. sida ay sheegeen dacwad ogayaashu, xadgudubku si lama filaan ah uma bilaabo. wuxuu ahaa mid qorshaysan, wuxuu ahaa mid tartiib u socda, wuxuuna bilaabmay markuu dhibanuhu uu jiray keliya 14 sano. wiilkaasi ayaa la ilaaliyay aqoonsigiisa sababtoo ah qof aan qaangaar ahaa arday dhigta Downers Grove South, wuxuuna ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee Formella tababaraha u ahayd. ay sidoo kale waxay u noqotay macallin isagoo keliya u gaar ah. dacwad ogayaashu waxay ku eedeeyeen in horaantii Janaayo 2023 Formella ay bilowday inay wiilka u dirto fariimo qoraal ah sidoodu ahayd kasbashada kalsoonida iyo dhisidda sir qarsoon. December 2023 markuu ardayda u gaaray 15 sano sida la sheegayna wayba kasii dareen. baariyaashu waxay sheegeen in lagu jiray cashar gaar ah ka hor intaan dugsiga bilaabo. gudaha fasalka Formella lagu eedeeyay inay markii ugu horeysay farxumaan galmo u geysatay wiilka. sida ay dacwad ogayaasha sheegeen halkaas kuma aysan joogsan, xitaa meel dhow kama aysan ahayn. 2 sano xigtay laga bilaabo horaantii 2023 ilaa Agoosto ama September 2024 dacwad ogayaashu waxay ku eedeeyeen in Formella iyo dhibanaha ay sameeyeen falal galmo qiyaastii gaaraysa 50 jeer. ugu yaraan 45 ka mid ahna waxay ka dhacday gudaha fasalka dhexdiisa ama iskuulka dhexdiisa. sidoo kale kulamo kalena wuxuu ka dhacay guriga Formella, isla guriga la wadaagtay ninkeeda, gurigii ay dhawaan ku dabaaldegtay arooskeeda. hal ilbiriqsi ah ka fiirso arrintaasi. haddaba sidee ayay wax waliba u soo baxeen? tani kaliya ma aysan ahayn xog uu bixiyey macallin kale, mana ahayn kaamarad kormeer ah, waxay ahayd hooyo iyo taleefon cusub. iyada dhibanaha ayaa wiilkeeda waxay u iibisay taleefon cusub, kadibna markii ay gashay iCloud-kiisa si ay u dejiso waxay heshay silsiladii fariimaha ahaa. yacni kaliya isdhees wiilkaaga iCloud-kiisa u toosi oo yacni fariimihii ama yacni waxyaaba hor u soo celi, balse waxay aragtay waxyaaba ka naxiyaba iyada. fariimuhu waxay ahayn kuwa si cad isku qeexaya, waxayna faahfaahin ka bixiyeen wax dacwad ogayaashu ku sheegeen xiriir galmo oo socday una dhexeeyay wiilkeeda dhalinyarada ahaa iyo macallimadiisa. iyadu waxay si toos ah u tagtay waaxda booliiska Downers Grove ee 15 Maarso 2025 markii xigtayna 16 Maarso baarayaashu Downers Grove ayaa sameeyay joojin gaar ayagoon gaariga ka joojiyeen Formella, waxayna xabsi u taxaameen iyada. muuqaalkani aad hadda daawanayso waa daqiiqadii nolosha qarsoon ee Christina Formella si lama filaan ah ku burburtay, waana iyadoo la qabanaya kadib markay samaysay dhammaan dhacdooyinkaas. 20 Maarso 2025 waxay kasoo muuqatay maxkamadda markii ugu horeysay iyadoo lagu soo eedeeyay hal dacwad oo farxumaan galmo ah, 2 dacwadood oo xadgudub galmo culus ah. arrintu hadda ay xiisi yeelanaysaa sababtoo ah Formella si aamusnaan ah uma aysan aqbalin eedaha. yacni kadib markii la soo eedeeyay kaliya ma aysan iska aamusin. markii booliiska la horgeeyayna fariimaha waxay lahayd kaliya waxaan bixinay aniga sharaxaad. sidoo kale waxay ku andacootay dhibanaha ama ardaygan 15 jirka ay baraysay casharo gaar ah. casharadaas uu ka qaatay fasalka gudaheeda, kadibna ay rabtay kaliya inay uga sharaxdo taleefankeeda. sidoo kale waxay sheegtay fariimahaasi oo idilba naftiisa inuu isaga isku diri jiray. taleefankii ay qabsan jiray ay ku dhahday, kadibna fariimo isku diri jiray, isaga naftiisa sheekaysan jiray kulaha, kadibna taleefanka fariimaha meesha uu ku diri jiray. kaas ay waxay ku tiri wuxuu keedsaday fariimahaasi si aniga mar walba
igu handado anigana mar walba handadi jiray. Marka idinkugu celiyo waxay sheegtay in ardaygan 15 jirka ah uu xaday eeda telefonkeeda uuna sameeyay xiriir been abuur ah kaasi oo ku jira fariimaha kadibna dabin oo uu isugu u dhigay macluumaadkiisa. Waxay sidoo kale u sheegtay baariyaasha in qof walba bartilmaameedsadeen sababtoo ah sida ay tiri waa qof qurux badan isla markaana waxay raacisay aniga waxaana sidoo kale qof aad u wanaagsan. sida hooyada ku ogaatayna markii wax lagu weydiiyay guud ahaan wiilka ugu yartay inuu isaga ahaa qof daba socda, laakiin baariyaasha midaasi ma aysan rumaysan sababtoo ah waxay heleen kadib markii ay sheegtay hadalladaasi ayaa burburiyay dhammaan sheekadeeda. markii ay booliiska baareen telefoonka Formela waxay heleen waxa kiyay baariyaasha kadibna gudaha notes app-ka dacwad oogayaashu waxay sheegeen inay ku jireen qoraallo ay ugu yeereen xusuus qorsi oo ah qoraal dheer oo ay u qortay wax ku saabsan ardayga xiriirka ay la sameysay iyo weliba dareenkeeda. qoraaladaas qaar ayaa xitaa waxay ahaayeen kuwa aad u culus. hal meel oo keliya ayaan waxay ku qortay ardayga inuu qiyaameeyey waxayna sidoo kale ugu yeertay inuu yahay nacas ama wasakh. waxayna tiri markaasi weligiin mar dambe ma wada jiri doono aniguna miyey qofka labaad ee mar walba la doorto anigu waxaan ahay wax ugu fiican ayaad heli karto. sidoo kale waxaa jirtay qayb kale oo uga magac dartay manifestations halkaasina waxay ku qortay inay filaysay inuu mar kale lasoo xiriiro si ay labadoodaba wax u hagaajiyaan. waxayna sidoo kale ku eedeysay wiilka in uu burburiyey guurkeeda iyadoona tiri inay marar badan u sheegtay inuu joojiyo fariimaha ilaa ay ka qalin jebinayo balse uu isaga ku qanciyay inay wax walba caadi noqon doonaan. sidoo kale sheegtay inay ka baqday kadib markii ay maqshay daris hore oo kiis la mid ah iyada lagu soo oogay. kadib markii ay booliiska weydiiyeen xusuus qorka Formela waxay sheegtay kaliya inuu ahaa meel ay ku dayso walbahaarkeeda ama anxiety-geeda wax kasta oo galmaha halkaas ku qoran ay ku saabsan yihiin kaliya ninkeeda iyadoona sheegtay inay la xiriiri jirtay ardayga xitaa iyadoo safar ku joogto Talyaaniga. kii laga hadlayo Michael Formela oo ah ninkeeda wuxuu kasoo muuqday maxkamadda isagoon garab fadhiya iyada wajigiisuna markaas wuxuu ahaa mid aan ka muuqan wax dareen halka dacwad oogayaashan ay soo bandhigeen eedaha ka dhanka ah xaaskiisa. sida ay baariyaal sheegeenna isagu gebi ahaanba waxba kama uusan ogeyn. intiyada maxkamadda waxay sheegeen in markii ay booliiska wareysteen uu yiri inuusan waxba ka ogeyn dhibanaha kaliyan uu ogaa inuu ahaa ciyaaryahan kubadda cagta ah. dhanka kale Christina waxay booliiska u sheegtay in ninkeeda uu si buuxda ugu warqabay ardayga saaxiib labada sheekaba si buuxda ayay u kala duwan yihiin midkoodna run ma sheegayo. Michael markaas ayuu wuxuu fadhiistay maxkamadda isaguna dhageysanaya wax waliba xusuus qorka iyo 50 jeer oo la sheegay in labadoodaba ay sameeyeen falal xadgudub galma ah walibana ay ku dhex sameeyeen dugsiga dhexdiisa dugsigaas oo ay ka shaqeyn jirtay xaaskiisa iyo waliba guriga ay labadoodaba wada degnaayeen. April 2025 dhibanaha qoyskiisa waxay ku noqdeen xarunta caruurta DuPage County markaan isagu wuxuu bixiyay xog dheeraad ah oo cusub. waxay baariyaasha ogaadeen ayaa horseeday May 2025 laga soo saaro eedaasi oo ka timid xeer ilaaliyaha maxkamadda. sidoo kale 17 June 2025 52 dacwadood oo dheeraad ah ayaa si rasmi ah loo shaaciyay. Formela hadda waxay wajahaysaa 20 dacwadood oo farxumeyn galmo ah sidoo kale 20 dacwadood oo xadgudub galmo ah 6 dacwadood oo ku saabsan kicinta galmo ee ilmaha iyo 6 dacwadood oo shukaansiya ama raadsin ah. tirada guud ee dacwaduhu waxay gaareen 55 dacwadood oo falkooni ah. dacwad oogayaashan waxay sheegeen in xadgudubka dhab ahaantii uu bilaabmay Janaayo 2023 taasoo ka dhigan in xiriirku uu bilowday markii wiil ku jiray kaliya 14 sano ku dhawaad hal sano ka hor intii hore loo maleynayay. xeer ilaaliyaha gobolka Robert Berlin ayaa yiri waxaan si toos ah u soo xiginaya eedeymaha cusub oo ay ku jiraan grooming iyo xadgudubka socday ku dhawaad 2 sano waa kuwa aad u naxdin badan. kii lagu helo dhammaan dacwadaha Christina Formela waxay wajihi doontaa ugu yaraan 60 sano oo xabsi ah inkasta oo culayska eedeymaha uu aad u weyn yahay. markaana dacwad oogayaasha si degdeg ah u doonayaan in la xiro ka hor maxkamad soo ayaana diiday marar badan in la hayo iyada isagoona tixgeliyay sharciga amniga ee Illinois. Forun wuxuu yiri inay jirto shuruudo lagu yareyn karo halista ay keeni karto sidaas darteedna Formela waa la sii daayay iyadoo lagu xidhay shuruudo aad u adag. lagu xiray qalab GPS oo mar walba la soconaya waxaa lagu rakibay barnaamij kormeer maan qalabadkeeda elektarooniga ah. sidoo kale waxaa loo dejiyay xuduud taasoo gaaraysa 5,000 oo feet oo aysan u soo dhawaan karin guriga dugsiga ama goobta shaqada ee dhibanaha. gebi ahaanba laga mamnuucay inay la xiriirto qof kasta oo ka yar 18 sano sidoo kalena waa laga mamnuucay inay gasho ama inay gaarto Downers Grove South High School. tan iyo markaas waxay si rasmi ah ugu tagtay shaqadii dugsiga waxayna sidoo kale iska dhiibtay ama iska siibtay shaatigeedii macalinimo. Formela waxay iska fogeysay dhammaan eedaha qareenadan waxay ku doodeen in warbaahinta ay si aan cadaalad ahayn u baahisay kiiskeeduna waxay xitaa ku andacoodeen inay tahay cadaadis ku saleysan jinsiga iyagoona sheegay in diiradda la saarayo muuqaalkeeda iyo nolosheeda gaarka ah. kiiska wuxuu weli ku socdaa nidaamka maxkamadda DuPage County.
tanina waa mid kamid ah dhibaatada ay leedahay diin la'aan. Dhibaatada jirta ayaa waxay tahay ayadu waxay macallin tababare qof loo aaminay inuu ilaaliyo wax baro oo hago carruurta. laakiin sida dacwad oogayaasha sheegeen waxay ku qaadatay ku dhawaad 2 sano in ay si qaldan ugu faa'iideysato kalsoonida carruurta. kan lay grooming ku sameyso boqolaal fariimo ah ayna fuliso falal badan oo lagu eedeeyay gudaha dugsiga. halkaasina waa meeshii ay carruurta inay ku dareemaan ammaan. kiiskan oo hadda dhalinyaro wuxuu la tacaalayaa wax aan qof yar wiligiis la kulmin. geeridiisa darteed ayuu u soo baxay oo u hadlay, taas ayaana keentay in 55 dacwad lagu soo oogo Cristina Formella. wiilka cadaaladiisa si tartiib ayaa u soo socota, laakiin wiilkiis waa uu socdaa. tanina waa dhamaadka muuqaalka maanta oo idinkugu talagalay saaxiibkiin walaalkiin Khafiifu. adigan saaxiib daawashada aad baad ugu mahadsantahay. waan kugu soo dhaweynaynaa channelkeena naga mid noqo oo ka mid noqo asxaabtiina kuwii ugu qaalisanaa.